أحلام عثمان لبا لبا تجر هل أبوري ganacsi una dooda bulshada ayaa diyaar u ah inay taariikh samayso iyadoo xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaali Mareykanna ee Puntland. Ahlam Cusmaan ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay noqoto qof wax ka bedela siyaasadda Puntland iyadoo uu leenaysa inay xubin ka noqoto golaha deegaanka ee matalaysa degmada saddexaad. Musharaxnimadeeda waxay fursad muhiim u tahay dhalinyarada codkooda aan matali karin ee magaalada gaar ahaan kuwa Soomaalida ayay tiri mar ay ka hadashay arrimaha ku saabsan ololaha doorashada iyadoo milkiilaha cafe sare ee Grand Ilhan waxa ay samaysay xarun dhaqameed ka turjumaysa joogitaanka firfircoon ee Soomaalida ee Puntland. Waxaan rabay in aan abuuro meel ay dadka aniga ay ku dareemi karaan guriga ayay tiri iyadoo ku nuucnuusatay muhiimadda ay leedahay matalaadda. Waxaa si firfircoon u taageeray dadaalada lagu doonayo in lagu caawiyo dadka deegaanka Soomaalida si ay u maraan caqabadaha maxalliga iyadoo ka dhigaysa cid lagu kalsoon yahay bulshada. Ahlam Cusmaan ayaa sheegtay in socdaalkeeda uu salka ku hayo sidii ay qoyskeeda ay ugu soo carareen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ku wargelinayo sida ay ugu go'an tahay xuduudista siyaasadda loo siman yahay oo wax ka qabta baahiyaha gaarka ee dadkeeda. Waxaan ka imid qolada badbaadiyaasha iyo kuwa wax ka bedelaya ayay ka tarjumaysaa ololaheeda. Waxa uu muhiim u yahay saddex arrimood: wax ka qabashada isbeddelka cimilada, taageerada ganacsiyada yaryar iyo horumarinta helitaanka gaadiidka. Mustaqbalka Puntland waxa uu ku xiran yahay tallaabo adag oo wax laga qabanayo cadaalad darrada deegaanka iyo sinaan la'aanta dhaqaale ayay ku adkaysanaysaa iyadoo hoosta ka xariiqday degdega hadafkeeda bulshooyinka la haybsooco. Waraysi ay dhawaan bixisay Ahlam Cusmaan waxay la wadaagtay sida ay ula dhacsan tahay shakhsiyaadka siyaasadda ee dhiirigeliya dhaqdhaqaaqeeda. Waan la dhacsanahay dadka sida Ilham Omar iyo waxaana u bogay iyaga oo sababtoo ah kama cabsanayaan inay u hadlaan kuwa u nugul xitaa marka ay tahay sida aan la jecleen. Waxay u doodaan siyaasadda ku salaysan cadaaladda, sinaanta, wax ka qabashada sababaha aasaasiga ah ee arrimaha ayay tiri iyadoo la tixraacayo dhimista miisaaniyadda la filayo. Ilham Cusmaan waxay uga baaqday in dib loo dejiyo agabka xafiiska booliska Puntland si loo xoojiyo dadaalada badbaadada bulshada iyo kor loogu qaado adeegyada caafimaadka dhimarka. Maalgashiga bulshooyinkeena waxay kobcisaa xaafado nabdoon oo aad waxtar badan marka loo eego wareegga booliska ayay ku dooday. Ololaha Ahlam Cusmaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo shakhsiyaad saameyn ku leh uu ku jiro senatarka gobolka Oregon Casey Jaamac oo Mareykan Soomaali qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Mareykan oo loo doortay sharci dejinta Oregon. Wadaagaan marka ay Soomaalida Mareykanka ay kor u qaadaan isku xirkooda ay muujinayaan muhiimadda ay leedahay matalaadda gudaha. Ahlam Cusmaan waxaa taageeray ka heshay gudoomiyaha degmada Washington iyo xubin ka tirsan deegaanka. Labaduba waxay u doodaan cadaaladda bulshada iyo